barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. bismillaah walxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeennii kobciye iyo cashir cinwaankiisu yahay meeqaad goysaa. ixtiraamka iyo qadarinta dadka dhexdooda aad ku leedahay miyaa kaala muhiimsan aqoonta iyo akhlaaqda aad leedahay? ma ku qiimeysaa dadka nooca gaariga ay wataan ama dharka ay xiran yihiin qiimahooda? waa maxay waxyaabaha aad marka aad dadka kale ku aragto jeclaysatay inaad adiguna haysan lahayd? waxyaabaha aan danayno, qaabka aan u fakarno iyo waddada aan nolosheenna ku wadno ama aan jecelnahay inaan marsiinaba iyo sida aan rabno inaan u hagno nolosheenna waxay soo bandhigayaan qiimaha aan joogno iyo waxa aan goyno ama tari karno. meeqo ayaad goysaa? waa su-aal adag oo ay adag tahay in qofku ka jawaabo, sababtoo ah waxay ku xiran tahay aqoonta qofku u leeyahay naftiisa iyo saameynta uu ku leeyahay dadka asaga ku hareereysan. ha ku fakarin awoodaha xaqiijin kara riyooyinka noloshaada. u fakar qaab gadisan. ku fakir awoodda aad u baahan tahay si aad u gaarto riyooyinkaaga una noqdaan kuwa xaqiiqooba. waxaa sidaa yidhaahda Michael Nallon. 3 Abriil 2008 ayaa wiil 20 jir ah soo qaatay gaari isagoo qoyskiisa u doonaya alaab. intuu waddada kusii jiray ayaa gaarigii cillad uga timid. wuxuu doonay inuu inta ka dego hagaajisto si socodkiisa uu hore ugu sii wato. markii uu dariishada inta furay gaarigii uu ka soo baxay ayaa gaari kaloo xawaare aad u sarreeya ku socda ku yimid oo ku dhacay. wiilkii meeshii ayuu shil daran ku galay kaasoo waxyeello gaarsiiyey maskaxdiisii, sidaasina indhihiisii uu ku waayey, lugtiisii midigna ku go'day. wiilkaas ayaa ahaa mid diiwaangeliyey 22 curin ama ikhtirac. dhacdadii shilka kadibna wuxuu jeediyey 100 muxaadaro, wuxuuna qaatay aqoonsiyo caalami ah oo kala duwan oo ay bixiyaan qolyaha ku howlan tababarada iyo horumarinta aadanaha. wuxuuna bartay cilmiga injineerinta diyaaradaha iyo duulimaadka oo ah takhasus aad u adag. kulan waraysi ah oo lala yeeshay ayaa wuxuu ku yidhi, aniga ma doonayo inaan sida dadka caadiga ah oo kale noqdo. waxaan doonayaa inaan noqdo qof ka duwan dadka kale. allah waa oraah aad u weyn oo qiimo badan ku fadhisa. wiilkaas waa wiilka lagu magacaabo Muhanad una dhashay dalka Sacuudiga. talow Muhanad imise ayuu gooyaa? Norman Cousins ayaa wuxuu yidhaahdaa, dhibka nolosha maahan inaan dhimanayno ee waa waxyaabaha aan u daynayna gudaheenna inay ku dhintaan annagoo nool. meeqa ayaad goysaa? marka noloshaada oo dhan ay tahay qosol, cayaar, waxaa la yidhi sidaa iyo sidaa iyo keliya waxyaalo aan macno weyn noloshaada kusoo kordhinaynin. ma diidani in qofku qoslo ama kaftamo ama nasto intaba, waana wax naftu u baahan tahay. hase ahaatee ogow in tin wax la eg ay u dhexeeyaan kaftanka iyo doqonnimada, waana inaad kala garan kartaa oo kala saari karto. qoraaga saameynta badan ee lagu magacaabo Robin Sharma ayaa ku sheegay kitaabkiisa yaa ooyi doona markaad dhimato oraahdan: noloshaada waxaad bedelaysaa marka aad go-aan dhab ah oo aad gudahaaga ka soo baxay aad qaadato, kaasoo ah inaad noqoto qof wanaagsan. go-aanka ugu fiican ee aad qaadan kartaana waxa uu yahay inaad sida ugu fiican u noolaatid ilbiriqsi kastoo noloshaada ka mid ah. waxaan is leeyahay dhammaanteen wayna soo aragnay waana na soo mareen dad caadi iska ah oo ayagoo caadi ah soo koray, caadi wax u soo bartay, caadi u baasay, natiijo caadi ah keenay, caadi u qalinjabiyey, caadi u shaqo galay, si caadi ah u guursaday oo gabar ama wiil caadi ah iska guursaday, ilmo caadi ah dhalay, kadibna si caadi ah u dhintay oo si caadi ah loo soo duugay. dadkaas waan aragnay soo maahan? maalin kastaana waan aragnay dad sidaa oo kale ah oo haba yaraatee saameyn wax ah aan ku lahayn dadka ku hareeraysan, noloshoodana ujeedo sare aan ka arsiinin. meeqa juz oo qur'aan ah ayaad si fiican u fahamtay macnahooda isla markaana xafiday?
meeqa buug ayaad sanadkan akhrisay, meeqa seminar ayaad qaadatay, meeqa xirfad ama tab ayaa kuu korortay, meeqa qof ayaad saamaysay oo wanaag ku beertay kaagana dayday wax fiican, meeqa macluumo oo aadan hore u aqoonin ayaa sanadkan kugu soo korortay oo noloshaada wax ka beddeshay. samayso cabir aad noloshaada ku cabirto kuna ogaato qiimaha ay leedahay iyo waxa ay goyso. isku day inaad naftaada ku soo biiriso ama ka beddesho sanadkii ugu yaraan hal arrin oo weyn taasoo dareensiinaysa farxad ballaaran kuna beeraysa nafta kalsooni weyn. ma adka inaad hal caado oo xun iska goyso sanadkii ama aad mid wanaagsan barato, waayo sanadku waa bilo badan, waa maalmo badan, waxaana u baahan tahay in aad si fiican uga faa'iidaysato naftana horumariso. ciyaaryahanka weyn ee ciyaarta golfka la yiraahdo ninka lagu magacaabo Ben Hogg ayaa wuxuu yiraahdaa, marka aad marayso wadada noloshaada carafso ubaxyada ku yaala, ma dheelaysid wax ka badan hal wareeg. xasuusi naftaada dhagaystow in cimrigu kooban yahay, noloshuna gaaban tahay. waxa maanta aad ku taamaysaa yihiin wixii biri xaqiiqoobi lahaa, waxa aad maanta haysana ee kuwa xaqiiqoobina ay yihiin wixii aad shalay ku taamaysay. xaqiiqo jirta ayaa waxay tahay in dadka badankiis aanay ogeyn qiimaha iyo dowrka noloshan ay leeyihiin, waxayna badankood arkaan markii ay ka sii socdaan nolosha oo ay iyagoo shalaynaya hoos isku yiraahdaan, haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa, sidaa ayaan noqon lahaa, iyo hadallada la midka ah. ha dhayalsan dowrka aad ku leedahay bulshadaada. raadi oo baar xalka mushkilad bulshadaada ka nasan weysay. soo hindis qalab iyo aalad cusub oo dadka wax tara. isku day in walaalaha iyo saaxiibada iyo dadka kugu hareereysan aad saameyn wanaagsan uga tagto. ka qayb qaado howlaha iskaa wax u qabsada ah ee dadka wax lagu tarayo, oo ogow in xataa xidigaha yaryari ifayaan markii mugdigu jiro, sida ay ku mahmahaanba dadka reer Finland. isweydii waxa aad rabto in dadka kugu soo xasuustaan marka aad ka baxdo dunidan. ma in la yiraahdo marxuumku wuxuu ahaan jiray online 24 saac oo qadka lagama waayi jirin, like-tiisu waa badneed, sharta ma bakhiili jirin, qofna weligiis blog ma saarin, wuxuu soo dhigi jiray sawirro shidan, wuxuu ahaa qof xirta dharka kii u dambeeyay moodada ah. ma sidaas ayaad rabtaa in dadku kaaga faalloodaan berri markaad geeriyooto? waxaan kuu hubinayaa in waxaasoo dhan dadku soo xasuusan doonin, ee keliya ay xasuusanayaan qalbigoodana saameyn ku yeelan doona wixii aad samaysay ee raadka lahaa. sida wuxuu ii sheegay eray dhaqaajiyay doonisteyda, iguna beeray hansarayn, wuxuu igu dhiirigeliyay inaan wax barto, wuxuu ii faa'iideeyay aqoon aanan hore u aqoonin, wuxuu ahaa qofka ka dambeeya in noloshayda sidan wanaagsan isu beddesho, wuxuu ahaa midka ka dambeeya horumarka aan maanta harsanayo, wuxuu ahaa mid dadka taakuleeya, iyo waxyaabaha la midka ah oo keliya oo ayay dadku xusi doonaan, xasuusanna doonaan, ayagoo iloobi doona dhammaan wixii ku saabsanaa noloshaada kale iyo waxa aad xiisayn jirtay ama aad samayn jirtay ee aan saameynta xoogan lahayn. markii aad dhalanaysay waad ooyeysay, halka dadka kugu hareereysan ahaayeen kuwa faraxsan oo qoslaya, ee nolol dhamaadkeeda aad ku faraxsan tahay, raallina ka tahay, laakiin dadka kugu hareereysan ka ooyi doonaan. waa adiga qofka qalinka u haysta oo qoraya taariikh nololeedkiisa, waana adiga qofka jilaaga ka ah filanka noloshiisa, waana adiga qofka soo saaraha ka ah, waana adiga qofka masiirkiisa xadidaya ee meeqaad goysaa. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.